bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo warida dhaqaalaha kobcay kaalin qaadayo kobka horumarku kor u qaadayo kulmiyeynune kor u qaadayo kulmiyeynune bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo warida dhaqaalaha kobcay kaalin qaadayo kobka horumarku kor u qaadayo kulmiyeynune kor u qaadayo kulmiyeyn horta marka hore ilaahay baa mahad leh inagoo nabad qabna isugu keenay goobtan quruxda badan ee bilicda leh dalladaha halkan intay markii hore yara dudeen xisbigoodii ku soo noqday iyo mas'uuliyiinta maanta xisbiga waddani iska casilay aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa waxaan odhan karaa dangarad ururka la yidhaahdaa dantiisuu garta oo dantu waxay ugu jirtaa xisbiga kulmiye haddaan doono waxaan odhanayaa allayle dantooday garteen iyo degalladoodii waxaa kaloo jira ururka mahiigaanna waa kaa da'ay ee dooxyadii maraya baynu odhan karnaa taada aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa labada ururba xilli waxa kaloo hadhay oo runtii xusid mudan dhaqankaab ururka dhaqankaab aad iyo aad ciyaar soomaaligii waad arkayseen aad baan ugu hambalyaynayaa dhaqankay kaabayaan bulsho xidid le xeerbeegti gacal xaaji iyo guurti waa dadkeenna halkan iyo odayaasha jooga dhallinyaro xarraga fiicanoo xarun ka boodaysa oo sacabka xijintiis taqaan xarafna seegaynin sida xuuralcayntii jannada dumarka oo xay ah hablahana bilicdooda iyo quruxdooda waxaan leeyahay maasha allah runtii waxaynu ku jiraa wakhtigii doorashadu foodda inagu soo haysay haddaannu nahay xisbiga kulmiye waxaannu ku dadaalaynaa ama ku ijtihaadaynaa doorasho iyo ololo nadiifa aflagaadada iyo caydu naga caagan way naga reeban tahay haddaad aragto laba nin oo mid caytamayo had iyo goor waxaad arkaysaa ka caytamayaa inuu yahay ka aan waxba soo qaban ka lagu hungoobay inuu yahay baad arkaysaa abwaankeennii weynaaye salaan carabay yaa wuxuu yidhi gindi waranka gaashaanka ficil goray dagaalkeeda hadda garo oo goray waxa weeyaan gobonnimadeennii markaynu sidan u hadlayno gindi waranka gaashaanka ficil goray dagaalkeeda gobonnimo dhammaanteed haddii laysu wada geey ma gudboona geesiga hanti iyo gocorka caayaaye ninka mujaahidkee soo halgamay iyo gocorka caayaya miyay gudboon yihiin waxaan doonayaa inaan dhowr qodob oo aan xisbiga waddani ka maqlayay yara taabto had iyo goor waxay ku tumaan ama ku eedeeyaan xisbiga kulmiye sicir bararka waxay yidhahdaan xisbiga kulmiyaha sicir bararka ka mas-uula annagu waxaannu ka odhanaynaa taa xisbiga kulmiye xilka 7 sannadood buu iminka hayay 6 sannadoodoo 7daa ka mida soomaali shilinka iyo doolarku isku in bay ku fadhiyeen maxaa markaa soo kordhay sanadkan ugu dambeeyey waxaa soo kordhay waxyaabo ilaahiyana oo aan gacantayna ku jirin waxaa ka mida abaar ballaadhan oo baahsan waxaa ka mida arrimo fara badan oo saameeyey dhaqaalaha dalka xoolihii oo sacuudigii inaga qaadan jiray 9% uu joojiyey meesha keliya wax inaga soo galaan
haddaad iminka meherad haysato oo aad leedahay qof kaa iibsada 90% waxaad hayso uu joojiyo soo saamayn kugu yeelan mayso waxa weeyaan dadka si cilmiyeysan in wax loogu sheego awalba dawladdu sicir bararka way ilaalinaysay iminkana barnaamijka xisbiga kulmiye ku qoran ee ballaaran iyo sicir bararka qorshihiisii iyo wixii lagaga qabanayay ay ku jiraan laakiin waa wax arrimo ilaahiyan keenay waxa kaloo jira abaaruhu markay dhacaan hadday dawladuhu dadka u gurmadaan oo lacag badan bixiyaan oo ay biyo iibiyaan oo ay raashin iibiyaan lacag dheeraadaa suuqii soo gelayso aanay markii hore xukuumaddu soo gelin taasi waxay samaysaa cilmiyan waa la og yahay sarifkay beddeshaa sicirkay beddeshaa cid allaale ciddii xilka haysa ama xukunka haysa way saamaynaysaa taa intaasaan ka leeyahay dhallinyarada barnaamij ballaaran buu xisbiga kulmiye u diyaariyey oo shaqo abuur waxay yidhaahdaan dhallinyaroy xisbiga waddani markay idinka hadlayaan dhallinyaradii waa quus oo way tahriibaysaa quus miyaad tihiin dalkiinna rajo ma ka qabtaan iftiin iyo ubax iyo nolol wanaagsan ma idiin muuqataa intaaba xisbiga kulmiyaa idinkula dadaalaya tahriibtu wax Soomaaliland u gaara maaha qaaradda Afrika oo dhan bay haysataa markii aan ahaa safiirka Soomaaliland u fadhiyay Itoobiya dawladda Itoobiya iyo dawladaha mandaqadaba aad baanu u darisnay tahriibta innaga inoo gaar maaha dawlado fara badan oo la aqoonsan yahay oo inaga dhaqaalo badan oo inaga dad yar oo inaga tahriib badan baa jira yaanay taa isticmaalin waa ceeb xisbi mucaaradi inay dadka quus iyo quursi u horseedaan taa intaasaan ka leeyahay waxa kaloo aan idiin sheegayaa wax badan baan ka hadlay arrinkan xisbiga waddani qadiyadda Soomaaliland iyo jiritaankeeda aad iyo aad baa loogu dhaliilayaa waxa loogu dhaliilayaa waad maqasheen anigoo dhowr goor hadlaya oo le mas'uuliyiinta sare hadda maaha qaar dhexe iyo qaar hoose ee xisbiga waddani iyaa sita baasaboorrada shaqaalaha Soomaaliya shaqaalaha dalka Soomaaliya koonfur micnaheedu taas maxay tahay qaar baa u shaqeeya hoggaanka xisbiguna raalli bay kaga yihiin bal haddii aanay raalli ka ahayn ha ka hadlaano baasaboorkii Hargeysa airport lagu qabtay ee mas'uuliyiintooda qaar ka mid ay siteen ha noo sheegeen halkuu ku dambeeyey miyaad celiseen ma sidii baad weli u haysataan miyaad ku shaqaysataan waa maxay waxaan hadalka ku soo ururinayaa xisbiga kulmiye wuxuu soo bandhigay vision iyo himilo uu ugu tala galay inuu dalkan wax ugu qabto mucaaradku waxay odhanayaan oo isagii baa iminka haystee muxuu iminkaba ugu qaban waayey Soomaalidu waxay tidhaahdaa oodo dhacameed siday u kala sarreeyaan baa loo kala guraa hawshii inteedii badnayd in wax badan oo la taaban karo xisbigu soo qabto inta kalena muddaxilaadkiisa labaad iyo ku darayaa waxayna hogaaminayeen insha Allah bidmillaahi kariim oo aad halkan isugu timaadeen inaad taageero buuxa u muujisaan mujaahidkeenna Muuse Biixi Cabdi waa nin hal adayg iyo tixgelin iyo karti iyo wax soo qabad maaha tii jihaadkuun waa tii dawladihii kala dambeeyey aad ku barateen weeyaan waa meesha dantiinna iyo mustaqbalkiinna iyo aayihiinnu ay ku jirto waannu soo bandhigaynaa markuu ololuhu bilaabmo
waxa aanu la maaganahay gobolkan togdheer iyo dhammaan jamhuuriyadda Somaliland aad iyo aad baan ragga aad uga soo shaqeeyay barnaamijkan ugu mahadnaqaya waliba si gaara gudoomiyaha gobolka iyo Cabdirashiid riyaraac wasiirka xanaanada wasiir dawladda xanaanada xoolaha oo aad arinta uga soo shaqeeyo si weyn isugu taxalluujiyay dhalinyarada waxaan leeyahay ku soo dhawaada xisbigiinii ku soo dhawaada sidaa iyo wada shaqayn wanaagsan